بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا وزدنا علما وعملا ينفعنا في الدنيا والآخرة. إله بينكم هذا علينا إن دور شدي السنة بتجري أكون ماطي نتيجة دينا سوى أحسن الله أقبلي أو محن كلها نتيجة دي أساس هارين كوميشنكم مدحوينها هذا حلقة سيها هي أنت أنا محكمة دي سربة قارين ويسوقوا هنبلي أو أقرادين نتيجة ده nabadgelyana ay ku dhamaatay maxaan ku rahdaa ilaahay baa lagu mahadinayaa maaha fiicnaan iyo wanaag iyo qurux inagu aynu la nimi laakiin ilaahay wuxuu inagu heliyey laa ilaaha ila allah maxamed rasuulullah calanka tawxiidka ee laa ilaaha ila allah muxamadu rasuulullah ay ku qoran tahay ee aynu taaganay ayaa ilaahay inagu cawilay oo ilaahay subxaana watacaala amniga iyo iimaanka iyo wanaagga inagu siiyey waxaan leeyahay waa mid ilaahay lagu mahadiyaa taa ha ogaadaan madaxda maalinba madaxtooyada fadhida waa madaxweynihii lixaad waa imika la doortay shantaa madaxweyne ka horreeyey nin waliba qadiyadda somalilan ay ku xardhan tahay laa ilaaha illallah maxamed rasuulullah meel buu keenay kaabiga ayay maanta saarnayd aqoonsigii caalamiga ahaa waxaan leeyahay madaxweynahan maanta ama doorashada madaxtooyada maanta cadowga somalilan ee ka soo horjeeda qadiyadda somalilan iyo calankeena laa ilaaha illallah maxamed rasuulullah aad iyo aad bay ugu farxeen sida ay sheegayaan aad bay ugu farxeen oo ay uga dayriyeen kii hore oo ay lahaayeen iyagoo aad ka garanayso ay leeyihiin maslaxaddii maxaan ku dhahaa geeska africa ayuu ka hor yimi oo ah in somalilan ama calanka somalilan uu baaboo ee laa ilaha illallah maxamed rasuulullah ay ku taallo kana ay leeyihiin si cadba ay u odhanayaan waxaan rajo ka qabnaa oo aanu ku rajo weynahay in madaxweynaha nimanka soo baxay iyo qoladan madaxtooyada nimanka soo baxday inay wada hadalkii Soomaaliya dib u furaan oo midowgii Soomaaliya ay ka shaqeeyaan haddii dadkiina taa dareen badan bay ka qaateen kuwii codeeyay iyo kuwii aan codeyninba dareen bay ka qaateen ama ha noqoto in la hafraayo ama ha noqoto mid ay ka arkaan ha noqotee welina hadal ka soo baxay xisbigii iyo madaxtooyadii la doortay oo hadalkaa maxaan ku rahdaa ka jawaabaya weli ma hayno haddii aanay la sugaynin marka ay kursiga qabtaan ee loo dhaariyo waxaan leeyahay ilaahay baa wuxuu subxaanahu watacaala yaa ayuha aladiina aamanuu laa takhunuu amaanatukum yaa ayuha aladiina aamanuu laa takhunuu allaha warasuulahu walaa takhunuu amaanatukum dadkii iimaanka lahaayow ilaahay iyo rasuulkiisa ha khiyaamayna yacniga ha u muujinina daacad hoostana wax kale ha ka qabanina oo munaafaqad ha ka qabanina walaa takhunuu amaanatukum amaanadiinana ha khiyaameynina waa in dusha dadka loo tuso wanaag hoostana cadowga lala safto taasi waa khiyaano aad u daran weliba inagu waxaynu caadaysanay hadday jeer madaxda marka aynu dooranno waxaynu ahnaa allah idinku asturo xilka ayaynu ahnaa allah idinku asturo oo haddii aynu ilaahay uga ducayno inuu nagu asturo inuu ku asturo oo uu dabeedna madaxdu ayna khiyaamayso miyayna inagu khaladka lahayn taa ayaynaan ugu ducaynin waa sababta keentay maalinba kii fashilmaa inuu shaar kala soo gashado hadduu shaar cadda mid cad soo gashado mid cagaara soo gashado maalinba shaar la yimaado waxaan leeyahay ha lagu duceeyo madaxda ha loogu duceeyo maxaan ku dhahdaa madaxda ha lagu duceeyo ilaahay subxaana watacaala xilkaa laydiin igmaday daacaddeeda iyo howlgalkeeda ilaahay ha idinku guuleeyo inaad si daacada u qabsataan oo ka dhab sheegtaan waajibaadkiina ilaahay taa ha idinku guuleeyo taa aynugu ducayno laakiin yaynaan ugu ducaynin ilaahay idinku asturo waa la sugayaa laa ilaaha illa allah maxamed rasuulullah hiilkeedu waxa weeye maanta in halkii raggaa hore soo gaarsiiyeen laga sii qaado weeye waa taa weeye taasaa shacabkii ku codeeyey ee maxaan ku raha ku doortay codkii oo dhan baad ku soo baxday codkii oo dhan ama kuwii ku doortay kuwaan ku dooran codkoodii maanta adaa ka madaxweynaha oo madaxweynaha mustaqbalka ah ee maxaan ku raha kursiga loogu wareejinayo tii weynaad fulisaa oo daacad ku fulisaa oo aanad ragaadin ee siday dardar gelaysaa oo sida ugu dhow ee ugu wanaagsan ee loo waday adaadna u sii dhabaysaa taas ayaan khiyaamo ahayn taas aan khalad ahayn taasaan in lahayn ilahay waxaan ka baryayaa ilaahay subxaana watacaala qadiyadda somalilan laa ilaha illa maxamed rasuulullah calankeedu yahay ilaahay subxaana watacaala madaxda u soo baxday ilahay inuu ku guuleeyo oo ay dariiqii madaxweynaashii hore jeexeen ay maxaan ku dhahdaa ay qaadaan oo ka dhabeeyaan baan ilahay ka baryayaa wasala allahu calaa maxamed wa alihi wasallam tasliima kasiira